madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan isxogwaraysi ah kula qaatay caasimadda ku-meel gaarka ee Kismaayo isimada nabadoonnada iyo waxgaradka maamulka Jubbaland. Kulanka ayaa waxaa madaxweyne Deni ku welinayay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Faroole, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo wasiirada Jubbaland, wafdigii madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kale. Madaxweynaha Puntland ayaa isxogwaraysiga kadib ku booriyay isimada nabadoonnada iyo waxgaradka dowlad goboleedka Jubbaland inay kala shaqeeyaan dowladda horumarinta, xasilinta, xoreynta iyo nabadda dhammaan deegaanada Jubbaland, waxaana uu madaxweynuhu xusay wada shaqeynta shacabka iyo dowladda horseedo horumar, amni iyo dowlad wanaag. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kula dardaarmay haldoorka Jubbaland inay garab istaagaan madaxda cusub ee maamulka Jubbaland si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ee dastuuriga ah, isla markaana ay si wada jir ah ugala shaqeeyaan xaalad kasta oo liddi ku ah xasilloonida iyo horumarka maamulka Jubbaland.